active u dirayaan nolosha isku gubayaan waayo waqooyi bari baa guuleysatay madaxweynaha dawlad goboleedka waqooyi bari Cabdulqaadir Axmed Cali oo ka mid dhaliyay himiladii iyo aragtidii fiishinka ay qabeen dadka reer waqooyi bari arrabaanka waqooyi bari matala leena ma wada mudna intii maamuleysay ee gacanta ku haysay sumal baraar kuma jiree waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha guddiga maaliyadda xildhibaan Cabdi Qowdhan reer Muqdisho waxaan la isdoorta nin meelo kale ka yimi yaanu idin soo waaridin aragtiyo kale shacabkiina doorta golihiina deegaanka doorta maayarkiina doorta gudoomiyihiina bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan idin hambaliyeenayaa meel kasta joogtaan waxaan idinku hambaliyeenayaa in miisaaniyadii baarlamaanka Soomaaliyeed ay maanta meel mariyeen dhowr jeer horena waan idin sheegay war miisaaniyadda way ku jirnaa war dawladda waqooyi bari qayb bay ka tahay war arrimahaas oo dhan waxa weeye dad badan oo waxa weeye mucaarad ku ah dawladnimada waqooyi bari oo u shaqeeya runta idin sheegaya SNM iyo Puntland ayaa narrative ka abuuray mar kasta jecel inay waxa weeye waqooyi bari jidka toosan ee hayse ee wadada horumarka leh ee guusha inay ka leexato waqooyi bari inay guul daraysato in albaab walba laga soo xiro kuwii jeclaa ee ku farxi jiray maanta gabal baa u dumay baarlamaanku waxay ansixiyeen miisaaniyadda 2026 waxaa aragteen dad badan la soo adeegsaday oo hadlay oo laga soo hadlay oo la waqooyi bari kuma jirto qaybna kama aha waxa la soconaa baarlamaanku inuu maanta ansixiyay miisaaniyaddii qodobkii 23 maamuladii jiray 23ga baa lagu qaybinayaa haddii la kuuro yahay miisaaniyadda 2026 barnaamijka waa la bedelay waxaana lagu bedelay deeqaha ka imaanaya beesha caalamka iyo miisaaniyadda Soomaaliyeedba waxaa loo qaybinayaa oo lagu maamulayaa dawlad goboleedyada hadda jira maaha kuwa 23 maaha kuwa hadda jira ayaa loo qaybinayaa waana qodobka waqooyi bari ugu jira weeye maamulada goboleedyada hadda jira yaa weeye qayb ma ka nahay member ma ka nahay ha qayb baynu ka nahay member baynu ka nahay saasaynu ugu jirnaa waxa weeye waana guul weyn weeye oo taariikhiya oo reer waqooyi bari u soo hoyatay waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dawlad goboleedka waqooyi bari Cabdulqaadir Axmed Cali oo ka mid dhaliyay himiladii iyo aragtidii fiishinka ay qabeen dadka reer waqooyi bari waan u hambaliyeenayaa madaxweynaha Cabdulqaadir Axmed Cali waxaan u hambaliyeenayaa mudanayaasha baarlamaanka ee geed dheer ee geed gacanba u koray ansixinta miisaaniyadda in waqooyi bari lagu daro baarlamaanka waqooyi bari matala ma wadaha hambaliyada ma wada mudna intii maamuleysay ee gacanta ku haysay sumal baraar kuma jiree waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha guddiga maaliyadda xildhibaan Cabdi Qowdhan oo isagu miisaaniyadda gacanta ku hayay oo geed dheer ee geed gacanba u koray hawshaan maanta dhacday iyo guusha maanta soo kordhay ee reer waqooyi bari u soo kordhay aan habeen ka saaxan taana waa ugu hambaliyeenayaa xildhibaan Cabdi Qowdhan albaabkaas waa soo xirmay miisaaniyad laguma darin waqooyi barina waa soo xirmay qayb bay ka yihiin baarlamaankana gacanta u taagay 170 iyo dhowr xildhibaan bacod aqlabiyeed ku ansixiyay albaabkaas waa inaga soo xirmay waqooyi bari waxa looma ogola fulaan narrative la abuuray dadka cadawga ku waqooyi bari ay abuuri jireen maanta gababa u dumay bal ha soo hambaleeyaan marba narrative bay abuurayaan marba walaahow dadka reer waqooyi bari waxaan leeyahay waxaad maqashaan oo aad daawataan dadka laxjeclada kale dawladnimada waqooyi bari ha daawanina qof shakhsi afraad interest gaar leh oo interestigiisa gaarka ah markuu waayay munaafiqadeynaya been ka sheegaya danti guud ee lahaa qof kastoo meelaha ka hadlaya aragtaan oo dawladda mucaarad ku ah oo wanaagga waqooyi bari ay sheegeen oo waxa oversight ku amaano meel walba la taagan waa qof dan interest isaga gaar u ahaa waayay waqooyi bari waa safe شرعي دواسو سعطا ميزانية دول لو أنسحيي قيب بيكتهاي أرنتاسنا البابكاس ما صاحرنا قف دماء بربوغا دكرا يستان ما جرتو قولي قبل نمر هيرو وقوي بري ما أنت كدب أوغادا واحد سرداد لغو شقي سنة يجرم وأنا عاملا وقوي بري أحين أنا حين oo ka shaqeynay inuu guul dareysano oo ku farxay inuu guul dareysano oo ku farxay in albaab walba laga soo xidhmo albaab walba inoo furmo oo madaxda dawladda waqooyi bari ay shaqeyso oo xildhibaanadina ay shaqeeyaan oo ay guul soo hoyaan nag lama arkayo maanta telefoonada waxa weeye facebookyada deactive ay u dirayaan onoga deactive ay u dirayaan
nolosha isku gubayaan waayo waqooyi bari baa guulaysatay reer waqooyi bari baa guulaystay hadafkii himiladii dadka reer waqooyi bari baa guulaystay maxay kale sheegi doonaan wax kale ay sheegi doonaan ma jirto arinta ah maxaa waqooyi bari loo carabaabi waaye oo loo meeshin garin waaye war waxaa la meeshin gareeyay gobolka banaadir kale iyo maamulada inagu banaadir oo kale ma nihin inagu waxaan nahay state waqooyi bari leeyahay galmudug puntland jubbaland koonfur galbeed waxa weeye hirshabeelle jabada argagixisada islam iyo waqooyi bari waa isteediyo weeye taasaan leeyahay oo yaan loo hosgelin maxaana loo carabaabi waaye state baa tahay aamin state tahay taana intaasaan leeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan ambaleynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan ku bogaadinayaa doorashada qof iyo cod ee ay horseedka u yihiin ee ay awoodii shacbiga ay dib ugu soo celiyeen maalinta khamiista dadka Soomaaliyeed taariikh baa u qorid doonta gobolka banaadir waxa laga qabanayaa doorashadii golayaasha deegaanka waa qodobka kaliya aan isleeyahay maanta dadka Soomaaliyeed dhaxal buu noqon doonaa xukuumadda hadda joogta ee madaxweyne xasan hogaamiyana laga si fiican u noqon doonta li taariikh noqon doonta mucaarad iyo mid sokeeyay mid sheegana waxa lid ku noqon doonta oo ay lagu gowrici karaa in Soomaaliya ay ka tagtay xilligii tan la isku dooran jiray iyo cid gooni wax loo yeerin jiray maanta awoodda shacabka lagu soo celiyay arrintaas wax weey wada weyn bay Soomaali u furtay dawladda oo ku hambalyeynay madaxda ku dhiiradaan leeyahay reer Muqdisho waxaan leeyahay doorta nin meel kale ka yimi yaanu idin soo waaridin aragtiyo kale shacabkiina doorta golihiina deegaanka doorta maayarkiina doorta gudoomiyihiina doorta xildhibaanadiina codkiina ku cilbaxa intaasaan leeyahay